رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. walaalayaal waxaan ugu salaamayaa salaamida ugu khayrka badan taasoo ku salaami jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi dhammaan asxaabteeda waxaan halkan u hambalyeynaya Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. maanta way tahay kowdii bisha Ramadaan oo Ilaahayna gaarsiiyay bishii Ramadaan. waxaan Ilaahay ka baryeena maanta noo rumeeyay, sidoo kale Ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu noo dhameystiro bishan sidoo noo gaarsiiyay inuu noogu dhameeyo khayrkeeda oo noo waafajiyo. waxaan halkan u soo istaagay inaan sheego hal xadiis oo aan ka badin maalin kasta hadaan hal xadiis wadaagno wax ka khayr badan ma leh, taasoo ah xadiiskii Sahal bin Sa'd as-Saa'idi oo warinayay rasuulka Ilaahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyay in uu yiri لا يزال الناس بغير ما عجل الفطر وآخر dadkayga kama suulayaan khayr lagu dhahay waa wax kasta oo wanaagsan. dadkayga iyo ummadeyda kama suulayaan ilaa ay soo dedejiyaan afurka oo waqtiga. waxaan halkan maanta munaasab ku ah inaan uga hadalno afurka goormaa la afuraya iyo suxuurta goormaa la suxuuranaya. afurka waxaa la afurayaa adinka qofka markuu maqlo qoraxdana ay gasho gudkeeda, waayo waxa ugu khayrka badan dadka qofkii dedejiya afurka dib dhigana suxuurta ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam. wax kastana waxa laga baranayo oo macalinkeena ah والنبي عليه قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا